بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولا لها إن شاء الله جنال كيغواني وعي جلينكو حيران إن شاء الله ولا لي المانتا دو إلهي ما يدهين وحاربين أنو دمستيرو هورت مانتا عنا موضوع وقتهين سيد عادة نوع مالن عنان كاسم سوغليا مالن نمحيه تولي وحكا لإسلو ذاقنا مركا إن شاء الله مانتا وحاربين إذين دمستيرو شاكذيني هورنو سعوتي maaragta qaybtii hore aan ka sheekiyay waxaan malina 2 maalin ka hore ama 3 maalin ka hore aan ka sheekiyay ala kullin xaal waan ka xumaynaan la soo daahay marka insha Allah raxmaan maanta rabaa inaan idin dhameystiro cidina la socotay kullay sheekada waxay noo mareysay gabadha inay maaragta miskiinta ahayd ee reerku ay soo guursadeen inay aad iyo aad gabadha ugu dhibtootay ilmo yarna ay dhashay oo maaragta xitaa wax kale iska daayay caawin in loo sameeyo iska daayay in maxay haytoole ayadii lugooyo waxyaabaha ay sameysanaysay lagu in la sii lugooyo in la bilaabay oo aad qanjuraaf oo si waxyaabo noocaas marka insha Allah gabadhii waxay sameysay marka sidaasay noloshaasi kulli isaga nooleed iska dul qaadatay ilmeedu koowaad haddana Soomaaliya iyo ama dad badan boo Soomaaliya kaliya ma ahane laakiin inta badan Soomaaliya oo badan meelahan oo kale intood ilmaha waxa la sameeyaa in dadku inay kala dheerastaan iyo waxa ku fikiraan dhibaatada qurba ka jirta ana sababayso laakiin Soomaaliya kale intood waxba ilma maaragta lagama fikiray ma sha Allah tabaaraka raxmaan cidoo Ilaahay ubad ugu deeqo way iska dhalaan Soomahan marka gabadha waxa dhacday ilmeed yarka markuu aduu sanad miya gaaray oo saanta qaad uu bilaabay inuu socdo uu bilaabay oo kale gabadha qaaday hada gabadha ogaadan dibkii la isaga jirta marka way iska sabartay waxay isdhaahday adduunyada waxa laga yaabaa in Ilaahay nasri kali guulkal ku siiyo wiilka inay maaragta uu sidiis hor ku noqdo iska dhici kartay iska sabar sababtiisa waa la soo lama dhihin marka tii gabadha ictiqaadisay way iska sabartay ilmihii kale urkiisa markay qaaday sidii si ka daran silac hor leh silacaan dhaamin ee ku dhashadane iska joogtay taa waxa uu sii dheereed awalka hore ee ilmaha kuwaad markii urkiisa leeyahay wax kale oo si mashquulnii ma lahayn laakiin hadda waxa uu sii dheeraatay inuu ninka wax kale iska daayay xataa uu dhaho mararka qaar hadii wiilku ma shaqeeyo meelna ma aad reerkiisa biilo oo biilka reerkiisa walaalkooda dibadda jiran oo soo biila reerahoodana sida caadiga ee reer iska ladan oo dhaqaale leh intoodaas ku filan reerku waa maaragta reer oo ganacsi fiican u furan oo maaragta dad waxa waay ganacsi u kala socdo wiilkaas walaalkoodana wuu caawiyaa ma sha Allah wuu dabara marka adinka wari aan ku daalin wiilku marka ma shaqeeyo meelna ma aado guriga iska jooga marka waxa dhacday inuu markuu ama banaanka aad ama kubad soo ciyaaro ama si kale intood duuradii kale markii la harsanayo kale intood marka qaar oo ilma yarka uu harsiimada uu diido harsiimankooda inuu duurka seexdo kale uu diido wuxuu leeyahay gabadha xaamil hadde wuxuu marka qaar dhahayaa maxay toole walaal ilmahan iga kaxay qayladiisa iga dhaqaaji waran walaal wana tacbaan caloosheedin waxaan kula xaamilan ilma yarkan waa ilma yare adana ila dhalay maxay tahay ala kulli xaal halkaas waxa idinkaga cad dhibaatada uu wiilka gabadha ku haayo waa mid ugu yaran ka soo qaatay inuu xataa ilmihiisa yarka u dhahay xataa ma aragtaan iga wad aniga iga aamusi aan ka seexday amal wari idinku daalin gabadhu way iska dhibaneed markan kadib waxa dhacday ilmihii labaadna way dhashay haddana muddo kadib sidii ayadoo dhibki isaga jirto iska dhiban horta waxa dhacday inay ma aragtaan maalinta dambe way ka tagtay reerka ma dul qaadan kartid bal horta ka tag oo reerihiini habrata iyo ilmihii walaalaha habrata dhashay bal halkaas qabo oo halkaas iska aad oo waxaad sameeysaa maxay toole bal reerkan inay ma aragtaa bal wiilkan inuu dareemo ina ma aragtaa wax un kala maqan tahay bal adii ilmahaaga ina wax un macna ay u leeyihiin bal inuu dareemo bal ka tag ayadu markaa kama ahan in lagu furay waxaas kuma jirto laakiin waxa isleedahay xoogaa yar ku handad oo ma aragtaa bal ha soo dibco oo sidaan iska bedelo okay waxay sameysay gabadhi waa baxday markay baxday alxamdulillah waxa dhacday ameebo reerkeedii ma aragtaa ay ka soo tagtay dhibaatada ay ku qabtay ameebo u roonaayeen maxaa dhacay reerkay u tagtaa warteed iyo ma soo dhaweynin gabadha marka hore waxa la ogaa emerdiidada wiilkan ku gashay ma aragtaa loo fogay gabadhi waxaan ku leeyahay wax walba loo diiday in ilmihi waxaan ku leeyahay baambar xataa duu ka dhamaad in loo soo gado leeyahay xumeysato gabadha ma shaqayso meel ma aado marka lacagna ma haysato wala waxaan ku dhaadiga waa la fogay warkii aan ku daalina sheekadan soo koobay gabadhu waxay sameysay way u dul qaadan weysay noloshii ee maaragtaa ee habarteed iyo walaalaheed in la sii noolaato ilmeed yarka ay la soo carartay guriga dib ugu soo laabatay guriga markay dib ugu soo laabatay gabadhu waxay noqotay qof aan meelna u roonin reerkeedina u roonin halkaan aysan u roonin ana kullin xaal gabadhu waxay sameysay marka dambe ilmihii labaad
ilmihii labaadna haysataa Soomaali laba cunug haystaa waxaa dhacday uur saddexaad ay qaaday uurkii saddexaad markay qaaday falilaahi alxamdu haddana way iska joogtay sidaceeda way iska qabtaa wax isbedel meesha ma jiro markan waxaa dhacday maxay heetoole ilmi yarka ahaa markay fuulanaysa awal hore markay fooshay waxaas tahay oo horta been ilaaha caayi ugu caawin jiray oo maaragtaa markii foosh qabato isbitaal uu kaxeen jiray maaragtaa marka inta xaaladaas uu la socon jiray adigu waxaa dhacday maalinta dambe gabadha waxaa la sameeyey horta xanuun baahayay wallahi dadka ma aqaan ani naxariista si ka tahay ma garanaya laakiin xanuun baahayay gabdhaha dimashaashada waxay ku tiri wallahi xanuun ay horta wiilka lafku ka qaban waayay uu maaragtay isaleeli waayeen magaal gurigana ma joogin waxay tiri xanuun baa ihaaye ma ay caawisiin walaalayaal makaalay raaca mursada iyo waca wax noocaas waa la sahashada waxaa la dhahnaa naxariis daraa loo muujiyay gabdhaha u muujiyeen gabadhu iska joogtay guriga iska joogtay gurigii maxay sameysay hadee guriga ku foolatay qof caawinayo ma lahan qof naxariisanayo ma lahan waxaan ku dhahay qofka dareemi karay halkaasay gabadhi ma aragtay ay ku foolatay xaalad khatar ay gashay ilmihii wuu soo goostay waxaan ku dhahay xaalad aan laga sheekay karin ay gashay wiilka wuu yimid markuu yimid waxaa dhacday ilmihii ma noolaanin oo ma aragtaa ilmihii way isa soo goosatay gabadhii ayada kaligeeda iska dhashay kadib waxaa dhacday maxay tole ilmihii markuu soo dhaafayna yaa ka qabanayo cid og ma lahan gabdhihii waa xilli gabalgaaban oo galab casir camal meelahaas eeday nin walba iska danaystay tiim saaxiibadeeda aadaysay tiim meel kale aadaysay gurigii waxaan ku dhahay cidlo ku ahaa maalintaas kaligeed ay joogtay wadaadkii maaragtaa sodogeed iyo wadaad sodohdeed ahayd maba joogin magaalada aan deganayn mahay magaalo kale oo maaragtaa oo ciday qaraabiyihiin ay degan yihiin ay aadeen oo muddo isbuucaba ma joogin waryaa idinku daalinine wiilku wuu yimid hadduu yimid gabadhu uu arkay xaaladii ku jirta uu arkay waa la cararay dhakhtarku geeyey ilmihii waa meyd ilmihii waa la aasay waa la iska xabaalay gabadhina kulli waa lala tacaalay waa iska roonaatay markay aragtay gabadhi marka xaaladan markaan go-aan kama dambeysay qaadatay wiilku waxay tiri wax ma ku sheegay walaalow warqadeydii isii fur aniga wax kale isamir kale igu hara malahan okay wuxuu dhahay ku furaha wuxuu dhahay hooba ku fura meherkeedana meher culus ah wuxuu dhahay meherna ma ku siinayo okay waaya meherna ma gaarabi ay siin daartid warqada la isii ala kulli xaal wuu furay meherkeedana soo maaragta uu diiday ilmihiisana uu ka reebtay marka waxay isku dayeen ilmeed ka qaadato walow ay og tahay inaysan waxba u heli doonin oo alxamdulillah ilaahay arsaaqada kafaala qaada laakiin aysan maanta cid isku haleysay jirin laakiin wax isku haleynay walaasheed mid Sacuudiga jirta inaysan dayici doonin bas waxaa dhacday markaan maxay heetoole uu ka reebtay ciyaalkeeduna uu diiday bas markuu ciyaalku u diiday iska tagtay guriga barteeda markaas tagtay walaasheed la hadashay xaaladeeda u sheekaysay bas walaasheed marka waxay dhahday asaas maadaama ay tahay ilmaagan aad soo tagtay haddana meel u laabata aad lahayn ninkaas hadaad rajo dambe ka lahayn oo hadhawaadan warkali keeni doonin bal haddana waxaan isku daya insha Allah inaan markale process-ku sameeyo okay sidii gabadh walaasheed dan process kale isku dayday way soo baxday gabadhii way soo baxday waxay aaday goboladaas Soomaaliya adi gobolka Madiina magacaabo marabay inay sii martay ay rabtay aaday markii arrimahan tahriib ku bixisay kadib meesha markii aaday reeray ku degtay reeraas gabadh iskala joogi jirtay maadaama reeray iskala joogi jirtay waxaa dhacday wiilkii horta been waa cilmi shaydaan intuu qof bini aadan qof jeclaado ay jecleed ayada waxaan ku dhahay xaqiisa lagama mari karin laakiin markii duruufaha ugu dul qaadan weysay ay xaaladii kama dambeys ee furiin la gaartay mahane ayadu ilaa xad waxay ugu dul qaadanaysaa waxay rabitaan iyo jaceyl asaga u heysay ahayd asagana wuu la fahmi waayay marka xaqiisa aad iyo aad ugu nuguleed waxaa dhacday marka ayadoo meesha joogto oo arinta sugayso oo walaasheed maaragtaa wax isugu duduubday oo inay baxda rabto oo haddana mar kale wuxuu dhahay maxay doole walaalay waxaa sameysaa wala soo hadle wuxuu dhahay walaalay shaqaan bilaabay waan shaqeeyaa horta waa run wiilku jaamacadna wuu dhameeyay laakiin asaga ma shaqaysta ahay balwadna lahaa marka wuxuu dhahay balwadiin wixii dhan waa iska daayay walaalay waa fiicnaaday adigu markaan adigu 4 bilood camal ka soo wareegato intay ismoogyihiin marka wuxuu dhahay walaalay in isku laabanaa rabaa ilmiheen aan wada korsano walaa ilmeeyarka way ku darsadeen walaalay soo laabo waa isgarowsaday qiimaha waa fahmay ala kulli xaal intuu qof ala cali karo ala cali saaxiibta ma moodin inuu ninkan qiyaamaye way soo dabacday waxay tiri marka maxay heetoole wuxuu dhahay
وصوعه وحودها هذا شقاه ليه هذا وشقيه هي أدي سيمينار ودرتي هذا سيمينار كي جوجا وقت يروح حد يسوسي فصحي وقت جيركا وماركتا أو قرع وحلا صوعنا هي هذا كصوعه ومشغول وكاسا ولا عليه كان أدي ورا يدك دارين إنه بير لحوسه يسكودي أوكي صاحب تابع كيشي marka maxay hadana markaan qiyaanada wallahi biladadka qaariyaab leeyihiin wuxuu sameeyaa marka mar walba markay la hadlayso marka codkeeda wuu duubaa marka codkeeda dhan recording ku sameeyay okay bas codkeeda markuu recording ku sameeyay hadhow wuxuu rabaa marka hadii ay maaragtaa ama wax si noqda idinku arki doontiin hadhow ujeedo ninka damacsan yahay gadaal ka fahmi doontiin bas gabadh waa ay dhahday waxaa dhacday marka walaasheeda marka wuxuu dhahay walaal soo laabo walaal aan waxay dhahday horta soo laabi kari laakiin waxay dhahday ani marka insha Allah meesha u socdo tago kadib maaragtaa hadaan wanaagsan noqotay insha Allah raxmaan waxaan sameeynaa ani meeshan jooga waan soo shaqeynaa kadibna ama ay iimaani sida suurta gasho ama ay suurta gali weysan aan ayday iimaan doon insha Allah laakiin hadda ani inaan soo noqdo laga ma yaabo okay ninka markuu arkay gabadha inay adkeynayso oo muddadan adila 3 maalin amal sheekadan ku waday markuu arkay inay adkeynayso oo wuxuu sameeyay horta reeraha ee la joogtay maaragtaa way la tashatay islaan maamo aad u fiican ahayd maamadii waxay dhahday ninkan waxa laga yaabaa inay lug kale u laabantay ilaa qof weyn waa moogta ayadu way fahansantahay sheekada waxay dhahday in lug u laabantay laga yaabaa gabaray aad u taxadar okay way dhahday على كل حال قبل مركي كشاكينيسان كودا ويسكو إن جرتي هذا دبعتو سومرين وقتها لكن وحاس وجعل يعني ويلكاس جعشها جعل كانوا كل وحاواي ووح إلهي وقلبك وكأبور وقفنا معركتا قلبي ما كنترول كر لكن قفك بسمين كرا إنه معركتا وسن قلبي سدقيس إنه عقلي معركتا إنه دقيستو وسمين كرا وقلبي إسكندر لكن جعل كل واحد جروا بس قبل وحس ما يسمرك markuu arkay inay adkeynayso ninkan sheekadiisa Saudi wuxuu dhahay waxaan ku sheegaa dhaha codkeedii dhageysi wuxuu dhahay maqlaysaha codkaaga dhan isaa waxaan ku dhahay hawsha dhan leedin u ahaadii wixii dhan waa duub waa kana walaashayaan hadda u diraa hadan walaasha dhageysiina adigana process waxaas ma kaaga dhamaada anigana waaba ana mana shaqay meelna ma aadii waxaan ku dhahay waa adaan maxay hetoole bal waxaan fiirinay ina ma aragtaa aniga maartadii kale adigu wax noocaas okay gabadhu way iska qaracantay walaashay hadana dhiisheega bal ninkan ani maxaan ka sameeyay dambiyo ka galay hadii noloshii aan ku darsadan u burburiyo hadda noloshaan ay walaashay inay abuurto rabto muxuu iga burburin aad ay wala cashay bas maamadii markuu waxay dhahday shib iska dhay walaasha wuxuu rabaa ku dhaho ana insha Allah la hadli doono walaashan ana ku qancin doono adiga dib dambe ha wala hadleen okay waxay sameeyay marka walaashay la hadlay walaashii codkii dhageysatay way la soo hadashay aad iyo aad walaashad waxaan aqday ma malaysa kartiin markaas waxay dhahday aniga meelna ma ku wadi meesha doontidna aad ama asaga u laabo ama badda gal aniga marnaba laga ma yaabo inaa xataa gabar walaashayo magacaas la dhahay jirjirta inaa ku dhaho laga ma yaabo laano ninka aragtay dhibaatada isla cad ku soo mariyay haddana sa arki iyo maaragtay iyo wala cali aan yaabo ala calkiis iyo koobinaya wali sheekay ila wada ninkan inta niyad ku haysin aan meel ku keenay way marka mana is sheegano aad gabadhii way diiday wadaadiyaal isku dayda maaragtay imaamada ee la joogtay inay la hadasho gabadhii ee qanciso walaashadeed nag warbay ka diiday gabadhii aad ay u murugtay aad ay u silicday hadana dhibaato kale ugu darsantay waxay sameysay garan weysay markii dambe walaasheed burburiyay ilaa kala mar walba qof walaalka ay waxa dhibkaaga uu dhibay laakiin xumaanteeda waxa calashan carada un baa ka tambadisay ala kulli xaal marka dambe walaasheed way ka yeeshay sidii walaasheed ay ku kaxaysay sidii meesha ku tagtay wiilkina sidii ma aragtaa kaga tagtay ma sha Allah tabaaraka raxmaan gabadhi Sacuudi markay tagtay ma sha Allah mudeer markay joogtay baninka ay guursatay reer kale yeelatay way degtay ma sha Allah soojka loo saalix aad iyo aad u jecel Ilaahay siiyay ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxaan ku dhahay ma sha Allah waxaan ku dhahay ubad kale u dhashay ilmaheedina ma ilaawin mar walba ogeed oo ma aragtaa weel hadli jirtay oo waxa la soo hadalshii jiray kale wiilka wanaag ma u haaynin wadaadi sodogeed la soo hadashin jiray mar walba ilmaheeda ka warhayn jirtay wiilkina wallahi qof walba waxa way jasiis soo qaadanaa Soomahan kulli markaas intaan wax ku dhacmo maqlin laakiin inuu qof iska nool oo noloshina ma aragtaa noloshiisa inuu iska wato wadii wax isbedel markaas aan kuma maqal laakiin kulli dulmiga maxay tole natiijadiisu kulli waxa way hadana dulmiga waliba dadka ma aragtaa isku dhow iska galaan diinteenu waxay noo sheegtay inuu dulmigaasi uu soo degdego ma aragtaa ciqaabtiisa
marka maxay toole kulli dheera ii dhawaab qofka daalimka ilaahay wuxuu dhahaa dheera ii dhawaab wuxuu dhahay waan ku hiilin doonaa marka ilaahay horta mar waa uu hiiliyay horta sheekada halkaas inooga egtay horta mar waxyaaban ka faa'iideyna rabo marka inaan idin sheego horta gabadhi mar ilaahay waa uu hiiliyo wuxuu ugu hiiliyay horta ayadu sawjkan u aragtay sawj u wanaagsan inuu maadaama ay jeclaatay laakiin maxay toole sawj kale ka fiican oo aad iyo aad uga wanaagsan oo aad gabadha u jecel oo asagii ay ku ilaawday oo horta ilaahay u sahlo ma sha Allah tabaaraka raxmaan wiilkini horta asaga ma maqlaan wax ma aragtaa markaas nafsi oo qabsaday iyo wax ma aragtaa dulmi oo markaas ciqaabtiisu kale u soo degdegtay ma maqlin ani markaas sheekadooda ugu dambeysay laakiin gabadhi ma sha Allah tabaaraka raxmaan horta waa kaas ilaahay nasrigaas uu furay oo ilaahay guushaas uu siiyay taas horta ilaahay uu ugu hiiliyay oo ma aragtaa hiiladu kaliya ma ahan in qofkii dhibaatada ku geystay in lagaaga argooy kaliya ma ahan qofka dulmi geystana ama adduunyada ama aakhirada mar un ilaahay uu ka jari doonaa samahan marka halkaas aan horta sheekadii insha Allah raxmaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaan kaloo idinka ilaaway gabdhihii wiilkii la dhashay ee gabadha maaragta saa ula dhaqmayay horta waxaa dhacday in horta ilaa waa la guurguursada gabdhihii laakiin kuma noqonin kuwa guurkooda maaragta ku najaxay oo guurkooda ku barwaaqista ma noqonin gabar walbo horta inta markaas la guursado ilaa 3 gabdhood camal la guursaday 3 gabdhoodna wax badan lama qabiisna marka waa la soo furay marka dulmiguna de ma fiicno ayagu kulay ama wax kale u geyso ama ma aragtaa wixii u geeyba u geeyay laakiin ama dulmi ha u arkaan ama u arkini kulli laakiin gabadha soo dulminayso maahan marka walaalahay horta dulmiga horta shay wanaagsan maahan ilaahay aniga iyo naftiina ilaahay waxaan kaga maganahay inuu ma aragtaa inaan dad dulmino inuu ilaahay naga badbaadiyo insha Allah raxmaan inta dulmi wadan ilaahay waxaan uga rajeenaa inay dulmiga ma aragtaa ay ka toobad keenaan oo ilaahay ka soo hanuuniyo inta la dulmiyeen hadda kamid tahay dadka madluumiinta oo la dulmiyay insha Allah raxmaan ilaahay waxaan kaga rajeenaa inuu guul iyo nasr ku siiyo ilaahayna ma aragtaa waxaan ka rajeynaa inaad noqotid qof qalbi wanaagsan qofkaas aan ku dayanin qofka dulmiyay ma aragtaa iska saamaxo iska ma aragtaa iska cafiina noqoto insha Allah raxmaan rajeynaa insha Allah walaalahay inta saaraba inaan fiidiyoga soo gabagabeeyo fiidiyowga sheekada aad ay noola dheeraatay cafwan hadii aan dheereeyay ma jecel intaan fiidiyo socdo inaan soo duubo marka sheekada hadalku maxaa jirtir la'aan u taraara soo lama dheh u tarmaamay ahayd marka maxay ahayd walaada sheekada la dheeraatay cafwan iska raali ahaada aad iyo aad u mahadsantiin daawashada fiidiyowga daawateen walaal hadii taa markii ugu horeyso channelkeena aad ma aragtaa daawatidne fadlan subscribe noo saar share garee asxaabtiina la wadaaga hadaad ka hesheen like noo saara insha Allah raxmaan wixii taliyo tusaale aad nuhaysiin qaybta commentiga nagu la wadaaga waxaan rajeynaa insha Allah raxmaan sheekooyin kale oo fara badan inay idin la wadaagi doono marka insha Allah raxmaan taas fiidiyowga xiguu kulmeen waxaan kaga tagayaa salaamta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh